السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دادان مeel baa inaga daamanaysaan halkan waa deegaanka TV waxaana ay wariyay Magan Xasan barnaamijka maanta waxaanu ku eegi doonaa hambaliyada ciida sida looga ciiday magaalada Gaarisa aad baad u mahadsantihiin waxaan idin leeyahay fadlan hadaad ku cusub tahay channelkan subscribe saar kambalelka furo si aad ula socodid waxyaabaha halkan aan soo gelin doono sidoo kale comment share and like ka soo bix waxaa sidoo kale ogtiin in caabuqa coronavirus awgiis aan la isku soo bixin isla markaana aan lagu iidin garoomihii waaweynaa sida garoonka weyn ee General Maxamuud marka wareysiyo kali ayaan halkan idinku soo diyaarinay waxaan idin leenahay in la socda. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Deegaanka TV waa idin salaamaya. Aniga waxa waaye Alamtara Al-Nasiib Dinle ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari khaasan magaalada Gaarisa khaasan degmada Buulmasraani waxaan ciid mubaarak leeyahay muslimiinta dhammaan meel walba ay ka joogan dunida waxaan ambali u dirayaa reerkayga dhammaan meel walba ay joogan ay ku ciideen maanta waxaan salaamayaa wariyaha deegaanka TV waxaan salaamayaa xaaskiisa iyo saaxiibintiisa waxa kale oo salaamayaa saaxiibyaalka waxa soo baran dhammaan meel walba ay joogan waxay idin leeyahay ciid mubaarak waxaan ilaahay ka baryaynaa insha Allah inuu cudurka cabuqa adduunka fasahaadinaya inuu ilaahay naga qabto waxa kale aan ilaahay ka baryaynaa insha Allah adduunka inuu ilaahay kala fura wariya adigana waa ku salaamay marka muslimiinta waxaad ogtahay inuu jiro maalmahan cudur la yiraahdo coronavirus marka adiga maxaad ugu baaqaysaa muslimiinta inay feejignaadaan arrimahaas iyo ciida balida iyo isgarab socdaan muslimiinta meel baa joogtiin waxay idin leeyahay kuwii maanta ciideen foojignaan muujiyeen way mahadsan yihiin kuwa biri ciidi doonaan sida hadda aan ognahay in ciida maanta ay kala jabtay ummadda qaar kuwana maanta ay ciideen kuwana biri ciidi doonaan inagana inaad foojignaan muujisaan guriyada aad ku sugnaataan hadaad tukanaysaan sunnooyinka guriyadiina aad ku tukataan inta bay idin farla muslimiinta meel walba joogtaan kuwii biri ciideen marka waxaa jira maalmahan ciidani in khilaaf u dhashay khilaafkaas maxaa ku saleen lahayd in la kala iiday dad ay bari iiday dadna maanta ay iidayaan khilaafkaas muxuu salka ku hayaa maadaama aan ognahay wadamada waaweynaa ee islaamka sida Sacuudiga aysan ciidin oo ay maalinta ku xigto oo axada iidi rabaan khilaafkaas maxaa ku saleen karta adiga anaga kullitu muslimiin baan nahay waxaana xadiidka nabiga waa inaan maalinka aragana ku soo aragana ku furna haba iska atay maanta waxa la sheegay inay dhiman ka soo jeedaan dalka Soomaaliya inay bisha arkeen ayna shaaciyeen oo nima lagu qancay noqdeen aba iska atay dalkan ku xirnaan jirnay waageena hore iyo haddaba aan ku xiranahay Sacuudiga maanta way sooman yihiin banina ma sheegay inay bil arkin bay inoo sheegeen shalayto marka waxaan ilaa aniga kulleeto waxay keenaysaa kala jabnaan muslimiinta laakiin way dhacday kuwii maanta ciideen ambaliya kuwii bari ciideen ambaliya marka aad baa u maasan tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملقين حليرة يوسف وحنجوا جارسة جارهان وتقوى إيدو نكسنا يا ليها مسلمين تميلوا البيت جوان ما شاء الله وانفرح سنة ما أنت الحمد لله إلهي جي صونك نسون نود نوسو مودي إن شاء الله إلهي جاهدنا غير كيسة هنود عليه بان لأن هاي نسي أجر كيسة يا سلام يا سا وحن سلامة يا صاحبك عبد الله يوجو جاران ADC waxaan salaamayaa walaalkay Cali oo jooga Bulagesto gaar ahaan waxaan kala salaamayaa saaxiibkay Yusuf oo jooga gaar ahaan suuqa xoolaha waxaan leeyahay walaalo ciid wanaagsan marka insha Allah ilaahay maxaa leeyahay hada soonka wana gudbisay ajirkiisa la noo dhaliyo insha Allah waxaan leeyahay hadana cudurkan jinno hada maartay caalamka saamsan Allah hanaga kaafiyo إن شاء الله مسلمين الله ورجاله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من التحاجي. سلمية. فمليان. أو إسلاموت. أو إسلاموت. أنا محل بشرى مع سلامة يا مسلمين مع أبوي أبي بسلامة دمان تيزل وانسوسلا. بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحالي بها دولة آل كينان وحان سلامها مسلمين تري دارس خاصة علماء الدين ته يا جوغان وحان سلام يا شرف وجود بينها ما جور ذي دا
ciid wanaagsan halkan waa deegaan TV waa idaacad wanaagsan ku soo dhawaada waxaan idin sheegayaa ciidan ciideeda kale ilaahay nabad iyo barwaaqo iyo nimco Allah nagu gaarsiiyo cimri dheer oo cibaado leh intaan cibaadadan soo gudanin ilaahay naga ajiibo khayr iyo baraka iyo nimco iyo nabadgelyaala yaan isku ogna corona ilaahay tabaaraka wa tacaala aan ka tala saaranay inuu rabbi dabeel caafimaad wadanka noo soo geliyo walaala طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة يا كيف بوصف فرحته في السلام عليكم مجيء وحمد محمد ودجن ولا تقوى الحمد لله نبض أن كعيني سونكي وبركيسنا الحمد لله نبض أن كدميني الحمد لله سفر حلا كعيدني inkastoo uu jiray qalaafir oo aan jirin amal sidii hore aan aqaan caadano ay hadda maanteena muslimiinta yaa salaam meesha u marnaysaa salaam ya muslimiinta dhamaan mid koowaad mid labaad familygeyga walaalkeyga cabdeen weyn salaad walaashii xaliimo saaro shamsa saaxiibkeyga maganaan si qaas u salaamaya waxaan leeyahay muslimiinta farxada lagu ciido ciideedna insha Allah ilaahay nabada noo gaarsiiyaan leeyahay gaarisa ummadda islaamka dhammaan ciid mubarak halkan waxaan ka salaamayaa waalidiinteyda ilmahayga gabadha walaashay kulli dhammaantood gabadha ilmaadarka anaa halka aan joogto qadiid ducaale maxamed ilmaheeda dhammaantood zakariye maxamed deeq saabiriin dhammaantiin waa salaamada inta islaamka dhan magacada adiga magacayga maxamed saacid maxamed aan dhahaa marka aad baad u mahadsantahay muslimiinta maxaa ugu baaqaysaa arrimaha corona maalmahan jira ilaahay corona allah naga qaado ilaahay idinkiis marka aad baad u mahadsantahay aniga magacayga waa Faysal Maxamed Guure waxaan salaamayaa muslimiin dhammaan waxaan u rajaynayaa ciid mubaarak muslimiinta ciid mubaarak ayaa leedahay ilaahay oo corona naga qabto Soomaa insha Allah bidnaa karim ilaahay naga qabto cudurkan aad baad u mahadsantahay aan ku salaamayaa qaas u salaamaysaa hudooyi wali qaasatan waxaan aad u salaamayaa abihii dhalay Maxamed Guure aadan walaashii ayaan Maxamed oo Nairobi ku sugan abartii Tamiin Maxamed Cabdiraxmaan iyo dhammaan intii ikasi maqalkii ama muuqaalkii aqaanto aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantiin waxa halkaas ku eeg barnaamijka maanta aanu ku eegeynay hambaliyada ciida sida looga ciiday magaalada Gaarisa caasimadda gobolka Waqooyi Bari Kenya waxaana ay wariyeen qaaliyo Magan Xasan aad baad u mahadsantiin waxaan idin leenahay fadlan hadaad ku cusub tihiin channelkani subscribe saar kadib gambalka furo si aad la socotid waxyaabaha xiisaha leh halkaan aan soo galin doono aad baad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan waa deegaanka TV لا